الرحمن الرحيم فرحدي مرugada isku badashay waa ilaahay mahadiis inaan caawa gacanta ku soo dhignay dambiile Jaylaani aadan abaadir oo dib u geystay ama dilay oo u dilay mobile dartiis hiba qaasim maxamed oo ardayad ahayd oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee dalka farxad ayay ku sugneed laakiin wuxuu ugu bedelay murugo cidii dhashay hooyadii oo dhashay Faaiise Maxamed Abuukar la yiraahdo oo caawa ku soo habeenadaas ku soo korisay agoontinimo wuxuu dhibaato u geystay asagu ayay la ilmaysay waxa dhibaatadaas oo dhan geystay waa Jaylaani aadan abaadir dhibanuhu wuxuu ku geeriyooday ceelasha biyaha isbitaal ku yaala oo la soo xaqiijiyay la yiraahdo Riyaad Specialist Hospital dibkii uu geystay Jaylaani aadan abaadir gacanku dhiglihii gacanta ayaa lagu dhigay waxaan u gudbi doonaa hay'adaha ku shaqo leh sida CID baaritaankiisa inkastoo uu qiraal yahay laakiin baaritaan badan iyo siday wax u dhaceen iyo dhacdooyinkii kale uu soo sameeyay hooyo waxay ii sheegtay Faaiiso in uu gabadhii ka yaraad hadda ka hor isagoo dil raba ay midi uu u wada ay ka badbaaday gabadhii yartaana ay sheegtay booliisku waa didaalay taliyaha saldhigga iyo gudoomiyihii deegaanka oo aan seexan ayaa ku didaalay ciidan deegaanka ayaguna deganoo sida wanaagsan ayaguna nolol shaqeeyay waxa la sameeyay tilmaamtii meesha wax ka geysanayay nin deegaan ah ayuu ahaa oo dhibaatada uu ku geysanayo tilmaamtii markii la sameeyay dabagal dheer gacanta ayaan ku soo dhignay